shaqada lacag fiican baad ka qaadataa noloshaada way dabooshaa guri fiican ayaad ka degan tahay gaarigaaga ayaad ka wadataa laakiin nafsiyan ma dareemaysid meeshan aad joogto inay shaqadaadii tahay si aad u gaadho meesha aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay dhowr arrimood qof kastiba kama shaqeeyo ama gacanta kuma hayo wuxuu u rabo dad qaarkood waxaa dhici kara inay ka shaqeeyaan shaqo ay u arkaan inay ku maamulaan quuto daruurigooda iyo nolol maalmeedkooda kuwa waxaa dhici karta inay nolosha ku khasbayso shaqo ayna ka raali ahayn inay ka shaqeeyaan ama ay waqti ku bixiyaan kuwa inay wax jecel yihiin inay ka shaqeeyaan noloshuna ay dhinac kale ay u riixday maanta joogo meelaha ayna ka raali ahayn nafsiyan ayna ku raaxaysanayaan shaqada ay ka qabanayaan haddii aad wajahaysid caqabadayo kale ma tihid qofkii koobaad ee adduunka wajaha ama culayska kale uu saaran yahay waxbaad jeceshahay naftaada waxbay rabtaa waxbaad iska dhex arkaysaa inaad ka shaqaysid ama noloshaada aad ku qaadatid laakiin nasiibku waxaa dhici kara goob kale ayaad joogtaa nolosha ayaad ku ilaalinaysaa hadaha kale haddaad ku jirtid waxaad u baahan tahay dhowr arrimood haddaad la timaadid waxaa dhici kara inaad samaysid shifting inaad ka soo wareegtid shaqadii hore aad haysay shaqadaad jeclayd inaad u timaadid shaqadaad jeceshahay ama naftaadu ay talent u leedahay markaad ka shaqaynaysid waxaad helaysaa inaad ku raaxaysatid inay culays kugu ahaan 24 saac inaad shaqada aad mudi karaysid joogtaa waa markaa wuxuu yahay talentigaagii ama hibadu ilaahay kula soo dhaliyay tusaale ahaan waxaad ka shaqaynaysaa shirkad engineering waad ka shaqaynaysaa ama engineer baa tahay shaqada lacag fiican baad ka qaadataa noloshaada way dabooshaa guri fiican ayaad ka degan tahay gaarigaaga ayaad ka wadataa laakiin nafsiyan ma dareemaysid meeshan aad joogto inay shaqadaadii tahay kuma raaxaysanaysid naftaadu raaxa ma dareemayso shaqadan ay ku jirto waxaad tahay macallin baa tahay iskuul baad dhigtaa iskuul fiican baad dhigtaa lacag fiican baad qaadataa nolosha way ku habaysan tahay laakiin nafsiyan kuma raaxaysanaysid shaqada aad joogtid waxaad tahay driver baa tahay gaari baad wadaa shirkad baad wadaa lacag fiican baa lagugu siiyaa howlaha way isku kor saaran yihiin laakiin naftaadu kuma raaxaysanayso shaqada aad haysid haddii aad ku jirtid xaaladaha oo kale waxaa jira wax la dhaho career shifting inaad bedeli kartid careerkaad ku jirtid ood career kale aad u guuri kartid inaad shaqadan aad kasoo shaqaysay inaad shaqada kale ee naftaadu raalli ka tahay inaad u guurtid dhowrka arrimood tooda koobaad waa inaad lahaataa himilo cad waa inaad lahaataa waa inaad ogaataa waxa aad u socotid iyo goobta aad u socotid waa inaad ogaataa ama aad aqoon u leedahay ama aad akhrisan kartaa goobta aad ka tegaysid iyo waxyaaba aad uga tegaysid iyo goobta aad rabtid inaad u wareegtid iyo sababaha aad uga wareegaysid waa inaad ogaataa muxuu kaaga baahan yahay fadra inta lacag ayaan sii wadi karayaa marka waa inaad lahaataa himilo cad waa inuu dariiqu ku cadaadaa haddii dariiqu madmadow kaaga jiro waxaa dhici kara inaad ku lugoodid shaqadaadii iyo howlahaagina inaad ka timaadid inaad gaari weydid shaqadii loo baahnaa marka waa inaad garataa inaanad noqon tukihii ka tegay socodkiisii gaadhina waayey socodkii daa'uuska tukaha ayaa la sheegaa socodkii daa'uuska ayuu arkay uu cajabiyey kadib wuxuu dhahay niyow socodkaagan miyaabad ka tegtid oo dhahdid socodka daa'uuska yeelo tababar badan uu sameeyey uu gaari waayey kadib waxay kaga dhigtay inuu boodboodo oo kii daa'uuskana uu gaari waayey kiisiina uu ka tegay marka haddii aan lahayn himilo cad waxaad u baahan tahay goobtaada inaad iska joogtid oo aad gelin riskiga iyo culayska aan kaaga sheekaynayo waa talabaad waa inaad lahaataa go-aan adag waa inaad lahaataa inayna caqabaduhu ku joojinin marka aad career shifting aad samaynaysid waxaad la kulmaysaa caqabado badan culaysyo badan ayaad la kulmi doontaa culeysyadaasi ha u ogolaanin inay hoos ku dhigaan culeysyadaas ha u ogolaanin inay niyadaada jebiyaan culeysyadaas ha u ogolaanin inay hoos ku dhigaan marka aad ka guuraysid marxalad nololeed ee aad u guuraysid marxalad kale nololeed career shifting aad samaynaysid waxaad u baahan tahay go-aan adag waa inaad lahaataa duruufuhu inayna hoos ku dhigin waxaad la kulmi doontaa dadkii kugu dhadhawaa
oo kuu arkaya qof waashay. waxaad arkaysaa dad kale oo aad la shaqaynaysay oo asxaab iyo friends aad ahaydeen oo iyaguna kuu arkaya nin ku ciyaaraya dab aanu ka bixi karin, nin shaqadiisii luminaya oo u guuraya meel aanan waxba ka soo saarin ama nolol madow galaya. marka caqabadaha iyo culayska ka hor iman doona marka aad sameynaysid career shifting waa inaad u adkaysataa oo aad lahaataa go'aan adag. marka ay sheekadu khadhaadhahay meesha aan la mari karin waa inaad alaabta u qaadataa, adigoo arkaya raaxo, adigoo arkaya gogol diiran, adigoo arkaya salary yaro fiican. waa inaad ka tagtaa, waa inaad dhaansataa weysadaada, waa inaa waqti socodka uu muhiim ahayn aad socotaa. marka career shifting haddaad rabtid inaad samaysid waa inaad lahaataa go'aan adag oo duruufuhu ayna joojinin ama ay hoos u dhigin. waqti saddexaad waxaad u baahan tahay samir iyo adkaysi. waa inaad sugi kartaa, waa inaad lahaataa samirkii, waa inaad u samirtaa, waa inaad adkaysataa. duruufahaasi marka ay kugu kordhacayaan waxaad u baahan tahay adkaysigeygii inaad yeelatid. sidoo kale waa inaad samri kartaa, natiijadu degdeg kuma timaado. geedka liinta waxaa la taagaa waqti, waxaa laga sugaa inuu liin dhalo ama midho inuu ku siiyo sanad, 2 sano, 3 sano. digaagadu maalin bay u baahan tahay si ay kuu siiso naalo. sidoo kale waxaad u baahan tahay sugitaan iyo samir baad u baahan tahay, inaad samri kartid si aad u gaadhid natiijada aad u ordaysid. haddaba waa inaad lahaataa samir iyo adkaysi. haddii kale meeshaad iska joog oo iska joog, salarigaaga iska qaado. haddii aad ku qanacsan tahay inaad isbeddel samaysidna waa in lagaa helaa samir iyo adkaysi. waata shanaade waa inaad lahaataa aqoon iyo xirfad. meesha aad u socotid waxaad doonaysid inaad heshid waa inaad lahaataa aqoonteeda iyo xirfadeeda. aqoontu waa wixii academic ah, waa inaad garanaysid wax academic ahaan loo soo barto, waa inaad garanaysid. sida haddii aad ka tegaysid engineering oo aad u socotid qaybta caafimaadka aad u socotid, waa inaad taqaanaa fildigii aad u socotid, waa inaad taqaanaa ama waa inaad isqalabaysaa oo isdiyaarisaa. aqoon academic waa inaad lahaataa haddii aad u socotid meel looga baahan yahay aqoon academia. haddii aad rabtid inaad wareegtid meel looga baahan yahay xirfad iyo skills looga yar baahan yahay, waxaad u baahan tahay inaad lahaatid xirfadii iyo skillskii inaad lahaatid. ama waa inaad jeclaataa ood baran kartaa. kasoo qaad nin engineering ah oo waxaa jiray Sacuudi Carabiya u dhashay, bashaar fiican ayuu qaadanayay, wuxuu ka mid ahaa engineering kuwa ugu fiican ayuu ka mid ahaa. wuxuu rabay ama uu iska dhex arkayay markay bilowgii social media ku bilow ahaa, ayuu rabay inuu career shifting u sameeyo oo uu ku guuro engineering, uu tago content creator inuu noqdo. ninkii wuxuu bartay editingkii, lightingkii, kameragii, qalabkii, wixii skills loo baahnaa ayuu bartay. kadibna wuxuu noqday youtuberka ugu saameynta badan wadan العرب. baan u malaynaya inay tahay inuu adduunka soo galana waa mid suurtagal ah. yacni lacagta uu ku shaqaynaya bilo waxaa dhici karta isaga inay maalmo ama toddobaad ay ku soo gasho. career shifting marka aad sameynaysid waxaad u baahan tahay aqoon academic ah. haddii aad tegaysid meel academy looga baahan yahay, haddii looga baahan yahay xirfadna waa inaad lahaataa skillskii iyo xirfadii kuu fududeynayay shaqada inaad qabatid. ama waa inaad jeclaataa oo aad baran kartaa, waa inaad u diyaarsanaataa. waata lixaade waa inay kugu hareereysnaadaan dad ku taageeraha ama ku dhiirigeliyaha ama dhamacda ku siiya waxa aad u baahan tahay. marka aad career shifting sameynaysid culeysyada ugu waaweyneed la kulmaysid waa ka xagga familygaaga. waxaa dhici karaa in familigiinu ay u baahan yihiin bishaarka aad qaadatid, inay u baahan yihiin ama ay ku maareeyaan lacagta aad ku shaqaysid. sidaa darteed markaad career shifting aad sameynaysid way ka hor imanayaan, waxay ku arkayaan qof iska dheeldheelaya, qof ciyaaraya, qof bilaa hadafa, qof ku ciyaaraya shaqadiisa ay ku arkayaan. marka waa inaad lahaataa taageerayaal ku taageeraha ama dhiirigeliyayaal waa inaad lahaataa. waa inaad la socotaa dad u arkaya waxaad sameynaysid inuu wax wanaagsan yahay. waa inaad u dhadhawaataa dad ku dhahaya kelmadda wanaagsan ee ah how soco waad gaari kartaa. waa inaad ka fogaataa hadallada negative-ka ee ah maxaad ugu tagtay shaqadaadii, maxaad meesha ka qabanaysaa, maxaad noloshaada ugu ciyaaraysaa.
وإن هذا اللذا سمشي أي كاجا إيمانيان أنت بدن أتكفقتها حتى بقى واحد وباحث هاي ضد تاجريال ديجيجليال هنقدان أصحاب هنقدان فاميلي هنقدان تدخل كدون إن لحتها تدخل كلسون وحد قبليسيد أما كو آخر السنكرية إن هذا هاي تالنتيكا أما عاد نقول كرسيد قفك عاد وباحث المستقبل كإن النقطة قبل التدبات وإن كفقتها نية جبكة مر لبدا ينقص علينا meel kasti tallaabo kasta socod kasta oo sameynaysid wuxuu leeyahay niyad jabkayga ka fogow niyad jabka waxa ku niyad jabinayo ha noqdo hadal ha noqdo ficil ha noqdo duruufo nololeed ha noqdaan mid ka hor imanaysa oo aan la tilmaami karin dareen waxa aad dareemaysa ha noqdaan marka niyad jabka iska ilaali waad bilowda dariiqaas waa inaad dhamaysaa dhexda markaad joogtid ha ka welwelin ha niyad jabin وهدين محاش قديم وجسوتري محان ولا شيء كجري وجسوتري عن يجبن كفوجو نيجبك سيدك له واحد وقتها ترون تركستي أما كفتين كستي إنه هي 10 أما دروس أدو باهناي سعد بعد سمسي مال أياتكتي ولا سي أتكلم كلنتي هو ديوان قليلين إنه هي دباتو واحد ديوان قليسا إنه هي 10 أو صبرتي يعني مالتها goobtaas ayaan tagay anagoo isku daya career shifting waxaan kulmay culayskaas hadiin inuu yahay wax niyad jab laakiin waxa u diiwaan gashataa 10 nololeed oo ku soo bartay markii aan sameeyay career shifting ta ugu dambaysa iyo gabagabadii oo ah tii sideedaad waana ta ugu muhiimsan waana gunaanadkii dhammaan inta aan kula soo wadaagay waa inaad lahaataa kalsooni nafeed waa inaad ku kalsoon tahay naftaada iyo waxa ay qaban karto xagga ay u socoto iyo waxa ay doonayso waa inaad lahaataa kalsooni nafeed oo kugu filan oo ka saari kara kadraha ka baxaysid ama culaysid aad wajahaysid haddii aad ku kalsooni naftaada waxa dhici karaya qofka aftahansan inuu ku helo inuu kugu qanciyo waxa aad wadid inuu yahay waxba kama jiraan dhanka aad u socotid inay waxba ka jirin qof baa ku helaya bedeli karaya aragtidaada ama kugu shubay karaya wax aanad qaadi karin ama aanad fahmi karin sida darteed haddii aad ku kalsooni naftaada waxaad noqonaysaa mid aad u fudud oo ra'yigiisa la bedeli karayo go'aankiisa la bedeli karayo culaysyada iyo dhibaatooyinka hor yaalla looga sheekayn karayo kadibna ku qanci karayo noloshiina halka kaga tegayo tiisi horena way doono tii dambe uu u socdina gaari way doono yani sidii tukihii ayaa noqonaysaa socodkiisii hore uu iloobi kii kalena uu gaari waayay ugu dambayn waa inaad lahaataa hal ku dhig qofku waa inuu lahaa slogan ama hal ku dhig waa inuu lahadaa waxyaabo ku wadi kara waxyaabo sida saaska oo kale waxyaabo yani wax ku buush garaynaya waa inaad lahaataa slogan waa inaad lahadaa ani axmed ahaan hadda waxa ku jira career shifting waxaan iga baahnay garabkiina hadda culayskii waa soo gabagabeyey alxamdulilah intuu badnayd maanta waa aniga nil hadlayo slogankayga ama taa ku socdo waxaa ka mid ah si aad u gaadho meesha aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay himilo cad go'aan adag iyo dadaal joogto ah intaa haddii layga helo waxaan si fudud ku gaari doonaa meeshaan u baahanahay garabkiinuna waa ii muhiim haddaad kor qaataan kor ayaa noqon doonaa haddaad hoos dhigtaana hoos ayaa noqon doonaa marka gacmahayga intii ku jirto waan sameeyey intiina ayaa ii dhiman aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.